saaxiibayaal maanta waxaan baran doonaa sida loo isticmaalo verb to be-ga, sida loo dhiso jumlad verb to be ah, ficilka ahaanshaha ah, sida loo dhiso jumladiisa ayaan baran doonaa. Kuwani waa falsameeyayaasha. Kuwani waa maxay? Waa falsameeyayaasha. I, we, you, they, he, she, it. I maxay qaadataa m. I waxay qaadataa m. We, you, they waxay qaadataan iyaguna waa r. Waxaa la shaqayn doona waa maxay? r. He, she, it na waxay qaadan doontaa waa maxay? is ayaa la shaqayn doonaa. Example, tusaale. We are happy. Inagu waan faraxsanahay. Kow maxaad samaynaysaa? Subjectiga falsameeyaha soo qaado. We ayaad soo qaadatay. We maxaa la shaqeeyaan ku yidhi? Waa r soo maaha. We are. Kadib maxaad samaynaysaa? Happy. We are happy. Waan faraxsanahay. He is a soldier. Waa kan. He maxay qaad? He, she, it. Saddexduba is ayaa la shaqeeyaa soo ma sheegin. He markaad soo qaadato is ku dar. He is a soldier. Waxa uu yahay sheeg marka. Isagu waa askari.